subax wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo ha joogtaan u diyaar garooba idaacadeena subaxnimo inaad ka daawataan janaalkeena youtube-ka sirta wararka waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay 22 bisha November sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn idaacadeena subaxnimo aad ku daawo doontaan waxaa qayb ka noqon doona Ra'iisul Wasaare Roble si rasmi ah loo sheegay inuu galay xeendahbkii farmaajo mar kale se Ra'iisul Wasaare Roble loo sheegay inuu la midoobay farmaajo oo gadaalka istaagay haddaba in Roble uu galay xeendahbka farmaajo maxay ka dhigan tahay rajadii Roble oo mar kale hoos u dhacday iyo farmaajo rajadiisa sare u soo kacday iyo macluumaad ku saabsan ayaa idin soo gudbin doonaa hoos u dhac weyn ayaa ku yimid ololihii doorashada Xasan Sheekh kadib jug culus oo soo gaartay Xasan waa maxay sababta ugu weyn hoos u dhacday ololihii doorashada maxay taa waxa saameeyay Xasan Sheekh Maxamuud ee keentay rajabeelka doorashada waa idin soo gudbin doonaa hooyo qaali oo hooyada dhashay Ikraan Tahliil oo ku gacan saartay warkii ka soo baxay maxkamadda ee natiijadii shalay la sii daayay haddaba waa maxay tallaabada u qorsheysan hooyo qaali ay doonayaan inay ku dhaqaaqaan mar haddii ay ku qanci waayeen haydii garsoorka waa idin soo gudbin doonaa sideed su'aal ayaa ka dhashay dilka wariyay Radio Muqdisho Cabdi Afrika haddaba sideedan su'aal ee laga keenay dilka shirqool loo maleegay dawladda dhexdeeda iyo sideedan su'aal waxay tahay idin soo gudbin doonaa dhuuso marab intii shalay wararkiina daawataba diyaarad ayaa ka degtay halkaas oo wada taliyaha Nisa Yaasiin Firay waxa soo baxay in musharaxiin badan loo diiday kaararka dambi la'aanta ee CID-da kuwa badan ayaa laga hor istaagay waa idin soo gudbin doonaa midowga musharaxiintu waxay ka shifeen qorshe Fahad Yaasiin iyo qorqor ay dejiyeen iyo amniga caasimadda oo qalqal xoog leh ku soo kordhay cabsi hor leh oo laga cabsi qabo qodobadan iyo kuwa kale muhiim ah ayaan idaacadeena subaxnimo aan ku soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channelkeena subscribe noo dhig gambarelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo soo dhawaada Ra'iisul Wasaare Roble ayaa si rasmi ah loo sheegay inuu galay xeendahbkii farmaajo markana sumcadiisa Roble ayaa la sheegay in 30% hoos u dhacday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa shalay xilkii ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq wuxuu ku bedelay agaasimihii madaxtooyada Cabdi Saciid Muuse Cali wuxuu ka mid ah ragga ugu agdhow farmaajo Maxamed Cabdirasaaq waxa uu wareysi bixiyay ku sheegay in xilka qadisiisa uu ka dambeeyay madaxweyne farmaajo ay isqabteen asagii farmaajo inkastoo uusan faahfaahin waxyaabaha isku qabteen asagii farmaajo maadaama labadoodu markay isqabteen xilkii laga qaaday hadalka Maxamed Cabdirasaaq iyo magacaabista Cabdi Saciid waxay labaduba muujinayaan in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble siyaasad ahaan isbedelay si toos ah markaana xeendahbkii farmaajo u galay waxaana cadeyn kugu filan labadani qodob aan ku sharaxi doono waa qodobka koowaad wuxuu yahay xilka qadisa Maxamed Cabdirasaaq oo ku timid rabitaanka farmaajo oo ay ahayn mid asaga ka soo gooday Ra'iisul Wasaaruhu taasida ay xaqiijinayeen sida uu xaqiijiyay wasiirkii hore iyo si lamida ila kordho xafiiska Ra'iisul Wasaaraha kahor inta aan labada ninba gaarin heshiis siyaasadeed dhamaadkii sanadkan bishii tagtay 2000 bishii October 2020 way adkeyd in Roble uu wasiir iska daayay xitaa agaasimeen xilka ka qaado rabitaanka farmaajo soo tixgelinaya iyadoo labada ninna ay markaas ka dhaxaysay loolan siyaasadeed oo xilalka dawladda ah ay ku tartamayeen wasiirka arrimaha dibadda markaas waxa uu xigay dhanka Roble qodobka labaad waxa uu yahay Roble wasaaradihiisa ugu sareeya waxa uu dhiibaa dad farmaajo wata qodobkan haddii duwan u dul istaago wasaaradaha ugu muhiimsan ee xukuumadda inta badan waxa ay saaxiibada farmaajo ama rag ay xulufo dhow yihiin farmaajo Cabdi Saciid Muuse wuxuu ka mid yahay shakhsiyaadka ugu dhow farmaajo 4 sano ugu dambeeyay saaxiibo ayna asagoo soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee farmaajo uu ahaa si lamida dhawaan waxa loo magacaabay agaasimaha madaxtooyada markii la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin laga dhigay Roble wuxuu ku soo laabtay xilli ay farmaajo kula lolamayeen magacaabista wasiiro ka tirsan xukuumaddiisa hadda wuxuu u muuqdaa farmaajo in gadaashiisa uu taagan yahay Ra'iisul Wasaare Roble dadka siyaasadda duraysa ayaa qaba in Ra'iisul Wasaaruhu ku soo laabtay xilli ay farmaajo kula lolamayeen magacaabista wasiiro
ka hooseeya kan arrimaha dibadda iyo weliba agaasimayaal iyadoo aan la ogeyn loolankii ka dhashay magacaabista ay xilka qaadista agaasimaha nisa iyo wasiirka amniga sida fudud ee Roble kaga tanaasulay ka soo labada nin iyo qodobadan Roble wuxuu hore ugu tanaasulay xilkii agaasimaha hay'adda nisa isku qabteen farmaajo iyadoo meesha laga saaray taliyii magacaabay Roble oo ahaa Bashiir Goobe lagana guuleystay Roble oo markaasi farmaajo rabitaankiisa shaqeeyay markaas oo Yaasiin Farey taliye ku meel gaar ah hay'adda nisa loogu magacaabay heshiiskii 22 Oktoobar waxaa ku jira in farmaajo soo magacaabo agaasimo cusub oo hay'adda nisa taas ilaa hadda ma dhicin mana muuqato xitaa in Roble lagu qanciyay in Yaasiin Farey uu sii shaqeeyo taas ayaana muujinaysa in xitaa farmaajo hadda uu rabay inuu soo magacaabo taliye cusub oo hay'adda nisa isbedel weyn ayaa ku yimid Roble iyo hogaamintiisa farmaajo waxaana la rumaysan yahay in arrimahan dhan ay ka dhasheen heshiiskii Oktoobar la gaaray oo ay Roble si degdeg ah isku bedelay dowladda Qatar oo dowladda garab weyn siinaysa farmaajo ayaa la rumaysan yahay in cadaadis xoog leh ay saartay ra'iisul wasaaruhu ayna joojisay khilaafka sida la sheegayo si Qatar ay ka dambeysay in ra'iisul wasaaruhu dabacsanaan inta la eg uu sameeyo uuna ka tanaasulo waxyaabo badan oo ay qayb ka tahay kiiska Ikraan inkastoo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu heshiis ay wanaagsan ay wada gaareen haddana madax banaani siyaasad ahaan Roble ma haysto mana aha nin madax banaan siyaasadda hadda iyo go'aanada uu gaarayo waxayna tani keeni kartaa daciifnimo ra'iisul wasaaraha ku ah maadaama uusan haysan madax banaani siyaasadeed isbedelka Roble waxay u horeysaa waxaa keeni kartaa cawaaqib xumo inuu ka dareemo qoyska Ikraan Tahliil oo xalay diiday baaristii ay sii deysay maxkamadda Roble hadda wuxuu dul istaagsan yahay fadaxado waaweyn oo ka dhashay kiiska Ikraan Tahliil oo sidii la rabay wali loo maareyn la yahay haddaba dhinaca kale aan u gudbay xog oo helay channelka Nasirta Wararka ayaa xaqiijinaya in hoos u dhacay ololihii doorashada Xasan Sheekh Maxamuud oo jug culus soo gaartay kooxda Xasan waxaana hoos u dhac weyn laga dareemay ololihii doorashada musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud bilihii ugu dambeeyay oo hoos u dhacay taasoo keeni karta in rajada Xasan ee doorashada ay meesha ka baxdo madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna xildhibaan kamid ah baarlamaanka Xasan Sheekh Maxamuud waxaa dib u dhac weyn ku soo wajahay doorashadiisa aqalka sare oo uu dadaal weyn ka muuqday isla markaana xubnaha ugu dhow qaarkood meesha laga saaray sida Koonfur Galbeed oo qaar kalena doorashadiisa aysan ku soo bixin xubnaha Xasan Sheekh oo taageersan xisbigiisa ku jiray ka soo jeeda Koonfur Galbeed halin kama soo bixin dhamaantood meesha ayaa laga saaray si lamida Hirshabelle kuraas Xasan Sheekh ka doonayay badankood waxa ku guuleysay taageerayaasha Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale farmaajo xogtan hina ayaa sheegaysa in Xasan Sheekh uu soo wajahay dhaqaale darro xoog leh taasoo keentay xildhibaano badan oo xisbigiisa kamid ah in kuraastooda ay waayaan qaar kalena hadda raadinaya musharaxnimada aqalka hoose ayna ay gacan gabad iyo qaarkoodna aysan rajo lahayn jugta musharax Xasan Sheekh soo gaartay doorashada aqalka sare iyo waliba xaaladda dhaqaale xumada soo wajahday ayaa la sheegay in hoos u dhigtay saameynta uu ku lahaa doorashada si gaabis ayayna ku soctaa saameynta Xasan Sheekh doorashada golaha shacabka jug kale waxaa la filayaa inay kasoo gaarto iyadoo saaxiibo badan oo isbahaysi ay ku lahaa oo halis weyn ugu jiraan qaarkood in kuraasada golaha shacabka ay lumiyaan iyadoo maamulka Galmudug hore meesha uu ka saaray kursiga gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare Abshir Buqaari oo tiimka Xasan Sheekh ku jira haddana waxaa la filayaa in kursiga golaha shacabka waayo Axmed Macali Fiqi oo ah sarkaal kale oo ugu weyn Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda waysto Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in isbahaysi siyaasadeed uu la galo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni isagoo musharax ah oo taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya balse aan weli la shaacin laakiin haddii hoos u dhaco ololaha doorasho Xasan Sheekh Maxamuud waxa iska muuqata in isbahaysi la sameeysan doono Saciid Deni oo loo arko nin kale oo saameyn leh sida ay ku waramayaan ilaha xogtan aan ka helino wagaagaha xaaladda Galmudug hadii aan ku socno diyaarad ayaa ka dejisay dhuuso mareeb agabyo kala duwan ciidamo iyo Yaasiin Farey waxaana la soo warinayaa in musharaxiinta qaarkood xitaa loo diiday kaararka aqoonsiga waa kaararka dambi la'aanta ee doorashada lagu gali lahaa
wararka xalay naga soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in shilay halkaas diyaaradaha ka dejisay agaasimaha ku meel gaarka hay'adda NISA Yaasiin Farey socdaalka Yaasiin Farey ee Dhuusamareeb ayaa ku soo beegmay xilli si cad loo xaqiijiyay in Yaasiin Farey uu rabo inuu ku soo baxo kursiga tirsigiisu yahay 67 arinta ugu weyn Yaasiin Farey caqabada ku noqon karta ayaa ahayd in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay cadeyso dacwadda laga gudbiyay Yaasiin Farey ugu dambeynna maxkamaddu ay banaanka keentay qaali guhaad hooyada dhashay Ikraan iyo qoyska Ikraan ayaa Yaasiin Farey dacwad ka gudbiyay balse xalay maqribkii ayaa natiijada hordhacay guddiga loo xil saaray baarista kiiska Ikraan Taliil waxay shaaca ka qaaday in natiijada la ogaaday Yaasiin Farey uu ka madax bannaan yahay arrintan ilxoga gaar ayaana sheegaya in Yaasiin Farey hadda rajadiisa in kursi xildhibaannimo inuu helo 98% ee aad u sareyso taliyaha hay'adda NISA dhinaca kale shakhsiga la tartami lahaa Yaasiin Farey iyo waliba sidoo kale Mahad Cabdulla Cawad oo labada shakhsi la tartami lahaa ayaa la sheegay in xitaa loo diiday in la siiyo kaararka aqoonsiga waa kaararka hay'adda dambi baarista ay bixinayso oo ah in qofka inuu dambi la helo hubiyo qofka kaarkaas haysta ayaa kaliya doorasho ka qayb gali kara qofkii kaarkaas waaya way adagtahay in doorasho uu ka qayb galo laakiin waxa la sheegay Yaasiin Farey qofkii la tartami lahaa la diiday oo Yaasiin uu keensaday qof malxiis ah oo uu rabo inuu la tartamin oo uu tanaasulo salamina Mahad Cabdulla Cawad ay wararku sheegeen xitaa in shakhsiga caadiga la tartami lahaa loo diiday kaararka aqoonsiga tan ay keeni karto in tartanba uusan gelin dhinaca kale 8 su'aal ayaa laga keenay dilka agaasimihii Radio Muqdisho Allahu naxariiso Cabdi Afrika oo shalay lagu aasay Muqdisho xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kamid ah baarlamaanka xiligiisu dhamaaday ayaa sheegay in shaki badan uu ku jiro dilka agaasimihii Radio Muqdisho Cabdi Afrika oo lagu qareejiyay qarax ka dhacay Muqdisho mas'uulkan qaraxan waxa mas'uuliyadda qaraxan waxa sheegatay kooxda Al-Shabaab hase yeeshee Fiqi ayaa shaki muujiyay in gacanta kulug lahaan karta dilka Cabdi Afrika in shabaab ay asaga oo soo bandhigay 8 su'aal oo ku xindaaban dilka kuwaas oo kala marxuumka ma jirto cabsi iyo hanjabaado loo hanjabayay toddobaadkii ugu dambeysay baabuurka uu watay waa la bedelay waxa iska lahaa baabuurkiisa waxa iska lahaa wasaaradda warfaafinta maxaa ilaa hadda aan cidna loogu soo qaban falkaas ama baaris xitaa loogu sameyn la yahay xiriir ma ka dhaxeyn kara dilkaas iyo waliba la safashada hay'adda warfaafinta qaranka ee la safatay ra'iisul wasaare Roble waqtigii khilaafku taagnaa oo kooxda farmaajo Fahd Yaasiin ba laga adkaaday ma ka tacsiyay farmaajo dilka wariyaha ugu caansan ee dalka isla markaana si firfircoon aqoontiisa kula dagaalami jiray kooxaha Al-Shabaab shirqoolka labada agaasime loo dhigay ma aha mid si wada jira Al-Shabaab iyo waliba qolo kaleba ay iskaga kaashadeen maxaa la gudboon ra'iisul wasaaraha in talaabo uu qaado maxaa la gudboon wariyaasha warbaahinta qaranka ee wali ka sii shaqeynaya mar haddii Afrika shirqoolkaas ku baxay dilka Cabdi Afrika Allah u naxariisay gacanta argagixisada miyuu ku baxay mise wuxuu ahaa shirqool loo diyaariyay oo la dhigay maxaa la gudboon wariyaasha kale warbaahinta qaranka u shaqeeya 8 su'aal ayuu ka keenay Axmed Macalin Fiqi isagoo ku booriyay taxadir dheeri ah inay yeeshaan waagaag saaxiibayaal subax wanaagsan warbixinadan ayaan ku soo koobi doonaa idaacadeena subaxnimo qodobadan ayaa ugu waaweyn qodobadan wixii soo kordha idaacadeena galabnimo ayaan ka xasuusina nabadgelyo